يا أفضل soo ma rabin inaad runta ogaato مس أبتيجي مقالة حمر وقصو عرّدها wuxuu u fuulayaa inuu hantidan ku sheegto يونس قلدا كوراديناي ما تلفون كوي قبان ويدك قلدها بص بالخير مهانتها انت وسعتها maalintan maxaa waa ninka aabbahay dilaa ninkaas eh ninkaas haddii uu afka furto qofka ugu horreeya la qabana adiga waay oo macquul ah ayay rabaan inay baaris ka sameeyaan tiri mas-uula tahay maba lagugu aamini karo haddaad iska xaraashaysid أدي هني وحاسة مسامني لسه حنتاي واه يا كان واحد يوم يجي لو تكمل اسكولين كلا سلالة سحاو ما بوجي محن كاقري هرتا marka ogal xmaqrinayo may majito xaskad habigu nafs waana idin salaam saaxiibayaal soo dhawaada hadal badan kama gaalo filinkan ayaa u soo guda galeena bilis haday tahay markuu warsan soo booqatay subscribe na soo dhashay oo gaarno 10,000 hadda hore noola joogteen muuqaalka leegno sar aad iyo aad u mahadsantahay filimku wuxuu ka bilowmanaya hani malaan ayaa soo wacaysa waxayna ku leedahay waxa adiga aad sameeysan ma in la fiican tahay laakiin hani waxa ma fahansan waxayna leedahay waxaad ka hadlaysay maxaa waaye aydan waxay leedahay afduubka galad idinka afduubtay Soomaa hani ilaa hadda wax ma isfahmin telefoonkan oo lagu jaraya halka kala galad waxa uu imaanayaa guriga Dr. Wardi laakiin muuse joogin waxana albaabka ka furaysa xaaskiisa isna waxa uu leeyahay muhiim ayaa u ahay hadda iyo waa loo wacayaa isna waa uu sugayaa aan u soo laabanayo inuu keeno dhankaas iyo bangiga ka wardoonayna oday Roble asoo iska fadhiyo waxa imaanaysa gabadhiisa waxayna ku leedahay baba inta adigu u afduubatay anaga nooga dhigtay inaan u raadino waxayna ku leedahay wax walba inaa ogaada rabaa ee runta ii sheeg isna waxa uu leeyahay wax walba inaa ogaatid ma rabtaa ay soo fadhiiso waanu u sharxayaa ni soo celiya galad wardi ayuu imaad waxaanu kala talinayaa inuu iskaga tago wadanka uu Nairobi u diro laakiin galad waa ka diiday waxaanu leeyahay waxa la abtigay ayaa wadanka uga soo cararay waxaanu ku leeyahay naftaada halis ayay ku jirtaa Roblena waa ku dili karaa ee gurigeyga joog intay wax ka hagaagayaan waxaanu sheegayaa inuu qolkiisa banaaya uu qolkaas iska dago noo soo celiya Roble ee gabadhiisa Roble waxa uu gabadha ka dhaadhicinayaa inuu asay dambi u salahan galadna uu uqtadaysan yahay waxaanu leeyahay geed walba dhicaankiisa ayuu dhalaa waxaana aabiis ayuu ka raacay ani buufisaaba lagu xiray waxa iska soo jaraysaa booliska ayaa aadaya waan u soo sheegay arrinkaas asna waxa uu ku leeyahay maya ninkaas sharafteeda ayuu meel uga dhacay ee aniga iida waana iskaga tagaysaa wax walbana waxa banaanka ka dhageysanaya qays ka kala galad waxa uu ku xanimnaa guriga waxauna wacayaa Yonisna kama uu qabanaya telefoonka na soo celiya haddana shaqtirada oo bangiga ka socotaay hani oo xafiiska iskaga jirta waxa imaanaya qays waxaana uu sheegayaa inuu maqlayo wax walba oo ayada aabeed dhex maray ee haday macquul tahay uu sheegay inuu wax ka xalin karo camal iyadana waxay u sheegaysaa inay tahay arrin family oo meesha iskaga tago shaqadiisana uu qabsado waxaanu arkaynaa inuu iskaga tago xafiiskiisa galay wax uu doonto malena ninkan qorshu damacsan yahay isla bangiga gudihiisa Yonis waxa uu maanasa gabar uu galad u soo diray waxayna ku leedahay galad maxaa telefoonka ugu qaban weysay asna waxa uu leeyahay galada iyadana waxay u sheegaysaa inay u wacayso si uu la hadlo laakiin waxa uu dhahayaa ha wicin aniga caaway la kulmaaye haddana banaanka in geeya lookaan iyo saaxiibkiis ninkii u afduubnaa waxay keenayaan meel maqaaxiya waxa uu tusayaa ninkii la dilay lookaan aabiis halkaas waxa uu ku arkaynaa ninkii galad afduubtay inuu lookaan aabiisna dilay haddana ninkaas ay raadinayaan lookaan iyo galad war dhalinyaro su'aashan iga hooya ma laga yaabaa galad iyo lookaan inay saaxiibaan maadaama uu cadowgooda hal yahay dhanka hoose ee commentiga fikirkaaga igu reeb bangiga noo celiya qays oo baskoolad la ordaya waxa uu imaanayaa oday Roble waxaanu leeyahay mudana baashan iga ninkaas asagoo gurigaaga jooga ayuu gaariga wax kugu dhijiyay wax walba ka filo baashan waxa kugu keenay inaad isku difaacdid isna waxa uu leeyahay war iga tag waa waarantaa waaba iga nixisay dhalinyaro su'aal labaad dhab iga siiya ninkan qays wajigiisa ma u bogin ma laga yaabaa mustaqbalka inuu ku yaco odayga maadaama ay labadooda besir isla ogyiin ma laga yaabaa inuu khiyaano u dilo aniga say ila tahay wax walba ka filo bal adigana fikirka dhanka hoose commentiga noogu reeb noo soo celiyo lookaan iyo tiimkiisa lookaan markuu arka ninkii aabiis dilay waxa uu leeyahay ninkii aabahay dilay waa u jeeda mana dhaafay laakiin wareeri waa uu ka diiday waxa uu leeyahay sidaas macquul ma rag waa inaga badan yihiin muuqaal ayaa nooga duubaya gadaal ayaana ka raadsanaa muuqaal ayuuna ka duubaya oday Roble waxa uu soo qaadanayaa baskoolada uu qaysiye wargalad cabsi waa wallahi odaygii yaa ka cabsaday oo maanta hub qaatay halka kale galad waxa uu aabiis u sheegay in loo hanjabay waxaanu ku leeyahay waxay ugu dhayeen waa ku dileynaa haddana wuxuu rabaa inuu guriga wardi sii joogayo inta xaalku ka hagaagay wardi waxa uu odaygu u sheegayaa inuu kula taliyo ninkan inuu dibadda aado laakiin duq waxa uu leeyahay arrinkaas hortaada anaa kula taliyay waanu iga diiday waxaanu ku leeyahay wuu madax adagay ma nin qorshe damacsan ay rabaa inay dibadda u diraan maba oga miyaa arrinkay wataan inuu wuxuu damacsan yahay uu ka wen yahay ugu dambeyn waa uu ogolaanayaa inuu dibadda aado laakiin ani waxaas leeyahay serious kama wuxuu rabaa inuu boobsiyo duqa iska aamusi camal inay tahay
habeenkii xilliguu odaygu soo hoyan lahaa waxaan arkaynaa caawa inuu askar soo watay allo wuxuu wadna weynaa. waxaa horey usoo waday kuwa ka tirsan ilaalada bangiga. xilliga cashada duqu wuxuu damcayaa inuu Manaal wareysto laakiin waxaan arkaynaa inay xanaaqsan tahay. Manaal waxaan ogaanaa inay ka xanaaqsan tahay arrinkii galadna uu wax kusoo akhriyay. meeshaan qofba qof ayuu bac ku xirayaa. duqu wuxuu weydiiyay si kulul ayuu uga jawaabaysay. Haaruun wuxuu odaygu ugu booteenayaa hadduu jaamacad dibadda u diri waayo inuu tahriibi doono. duqu waa xanaaqayaa meeshan waa iskaga kacayaa qolkiisa ayuu gelayaa. hooyadood waa ay waaninaysaa waxayna u sheegaysaa abood inuu jecel yahay. waxaynu u sheegaysaa wayna ka daba tagaysaa odayga. halka kale Qays waxa loo sheegayaa inuu galad guriga ka maqan yahay. waxaanu ku leeyahay wax 4 maalin ka badan ayaan guriga hor taaganaa odayga kaliya ayaana ka soo baxa. isna wuxuu leeyahay duqa xataa afduubta ugu hanjaba laakiin wuxuu ku leeyahay duqa lacagtiisa lacag kale waaya taasna waan ka wada hadli doonaa. waxaanu ku leeyahay aniga ayaa raadin doona meel walba uu galana waa ka soo saari doonaa. waxaana loo sheegayaa ninkaas hadduu soo heli waayo inuu asaga dhib qabo ninkaasna uu wajigiisa arkay. waxa uu ku leeyahay ninkaas adigu wajigaaga arkay haddaa soo heli waysidna aday dhib aday dan kuu tahay inaad soo heshid maadaama uu wajigaaga arkay. halka kale duqdu waxay u imaanaysaa odayga waxayna ka raaligelinaysaa waxay ciyaalku ku sameeyeen. waxayna ku eedeynaysaa inuu asagu qaladka leeyahay maadaama uusan waxu u sheegin uuna sabab u yahay inay ciyaalkiisa sidaas ula hadlaan. waxay kaloo u sheegaysaa inuu gabdhaha afrax raadiyo uuna hantidooda siiyo. iyagaa xaq u leh markay rabaana way u baahan karaan sababaha u noqon inay ciyaalka hadhow ay islaayaan adiga dartaa. ciyaalku waa isla dhasheen say rabaana wax u qaybsadaan. waxa uuna leeyahay kuwaas waa say walaahi hantidaana ma ku aamini kara war oday u khaleelsana. waxa uu soo xasuusanayaa waxyaabo dhex maray asaga iyo afrax sida maalin uga sheekeynaya inay gabdhihiisa rabaan fikrado ganacsi inay Baaris ka furaan. Manaal aabaheed waxay ku leedahay adigahani waxa sameeysan ma in la saxanta. asna waxa uu ku leeyahay waaba ogaaba inuu dhankaaga ka soo mari doono ma wuxuu ku sheegay ayaad aamintay. waana uu iskaga tagayaa halka kale Galad iyo Dr. Wardi waxay imaanayaan guriga Yoonis. Galad waxa uu saaxiibkiisu sheegay inuu halkan ku sii sugo asagana uu la soo kulmi doono. waxa uu xasuusinayaa inuu iska ilaaliyo sanadkan bini'aadan isku mahalayn kara. asna waxa uu leeyahay ka walwalin ninkan waxa uu igu sameeyaa markuu u imaado Yoonis waxa uu arkayaa inuu Galad u imaado. asna waxa uu leeyahay waan daalanahay hadda shaqo ka imaaday ee mar kale ayaan kulmaynaa. Galad waxa uu ku leeyahay wax badan ma ka qaadanayo wax yar ayaa rabaa inuu kula hadlo. asna waa uu ka diidayaa. waxa uu leeyahay arrinka Siiri ayaa rabaa inaan wax ka weydiiyo. Yoonis markuu intaas maqlo albaabka ayuu furaya waxaanu leeyahay waxba kama ogi. goorta uu weydiiyay markii ugu dambeysay waxa uu leeyahay ma xasuusta albaabka ayuuna ka soo xiranayaa. marka albaabka laga soo xirto waxa uu leeyahay dhib malaha booliska ayaa u tagaya wax walbana waa u sheegaya. waxaana dhahayaa mid shuluqaya dhimashada Siiri wax ka og. Yoonis intaas markuu maqlo waa uu naxayaa isla markiina waxa uu gudaha soo gelinayaa Galad. waxaanu u sheegayaa wax walba iyo sida u dhaceen. waxaanu leeyahay habeenkii dhimanaysa habeenkii hore waxa uu sheegay inay la wadaagto Qays. markay u sheegtay kadibna waa ay dhimatay. waxaanu arkaynaa Galad inuu fikirayo. Qays su'aal kale ma laga yaabaa Galad inuu ogaado Qays inuu khiyaano leeyahay. lacalla hadduu ogaadana qaab noocyo ayuu ku ogaan karaa. fikirka waxa noogu reebtaa dhanka hoose ee faalada. inta nala soo gaarto ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. waxa ku xasuusinaya haddaad weli nagu soo biirin inaad nagu soo biirto gambalaalkan aan furato si aad u noqoto daawadaha koowaad ee daawada muuqaalada aan gadaal ka soo dhigi doono insha Allah. muuqaalkana noo la garay si uu gaaro daawadayaal badan aad iyo aad u mahadsantahay. dhalinyaro su'aal ma jeclaan lahaydaan inaad qaybaha kale filimka sida camal aan kugu soo diyaariyo. hadday jawaabtiinu haa tahay dhanka hoose ee faalada noogu reeb aad iyo aad u mahadsantiin. inta muuqaalkan ay muuqaal ka kulmayno sidaas iyo amaana Allah. bye bye.